Somaliland waxaa lagu bogaadinayaa dimuqraadiyadda iyo nabadda oo ah labada ugu muhiimsan haddii labada xoojino اعترافكم هو إيمانية وكيد جالس كله في دعي أنا واحد رميس نحي إنه سودوي هاي ما له أنا كهذا إيميل بانكوري والله طيلا سعرض سومالا ولا قصنا حكى حالنا يجينا وحنا أوروبا ما شو يسودواتي ساكن ورقبتان تضبيط توكي مي مالك هور سيدي توكي مي وهم بقول سجاشان يصدح ورقات وديره هجومياش الدنيا ويسوي شيء رب قرة ويسوي شيء مدحوينيال ويسوي شيء رئيس الوزراء طبعا قالنا وكسمي هاوشاس وهنا كل صونا هاي إن Somaliland dadka u garaawaya ama dawladaha u garaawaya ay maalinba soo kordhiyeen haddaynu nabadana xoojino wada jirkeena xoojino اعترافka iyo horumarka aniga ii daaya waxaan ku tagay safarro dalka Imaaraadka iyo dalka Ethiopia labadaba waxaynu nahay labada dalba saaxiibo dhow waxaanay booqashadeedu ku soo dhamaatay iyo wada hadalka iyagu guud ahaan isafgarad iyo inuu sii kordho siina xoogaysto iskaashigeena dhinaca ganacsiga dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca siyaasadda waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga oo subadna uga dhigaya in nabaddu ay ka mid tahay shaqooyinka aanay dawladuhu keligood fulin karin nabaddu gunta ayay ka soo tolantaa sidaa awgeed ma hirgasho haddii aanay qofka ama qoyska iyo bulshadu ka soo unkamin iyaguna aanay ilaalin marka waxaan heshiiska aynu gaadhnay nabadda aynu unugnay waa inaynu dhaadhicinaa waa inay guri walba gaadhaa oo ninka adhiga la jooga loo sheegaa ka dukaanka haysta waa in loo sheegaa ka siyaasiga waa in loo sheegaa ka wadaadka waa in loo sheegaa ka daydayga laftigiisa waa in loo sheegaa in heshiis dhacay oo la nabday markaas bay dee nabaddu inoo hagaagaysa sharaf weyn bay tahay inaan maanta gogasha soo xidho sidaan sheegayna waxaanu diyaar u nahay wixii qabiyaa ee xukuumad ahaan inay gacan weyn ka geysato inay amniga sugto amniga muwaadinku xukuumaddu saaran yihiin xukuumadda ka mas-uula marka waxaanu doonaynaa un shacbigu inay gacanna siiyaan laakiin amniga waanu sugaynaa waxaan rumaysana inaanu ku filan nahay amniga inaanu sugno nabadda waxaynu uga gudbaynaa talo wada jir ah oo aynu kaga arrinsanayno horumarka iyo dhismaha gobolka iyo magaalada waxaan farayaa badhasaabka iyo maamulka degmadaba in qorshaha nabadeynta iyo walaaleynta ay gacanta ku hayaan oo sii wadaan haddii alla yidhaahdo ciddina looga baahdo ragga shaqaynaya inay ku hadhaan ama guddiyadii aanu soo dirnay ha noqdo ama mas-uuliyiinta
golaha xildhibaanada golaha guurtida iyo wakiilada ha noqdaan nasiib wanaag labadii guddoomiye waxayma weynala joogaan labada aqal oo labaduba ka soo jeeda Sanaag anigu waxaan leeyahay waqtigaygii badnaa gobolka intaan geliyay Sanaag gobolka geliyay ma jiro